saaxiibkay xuuto gudoomiyaha soonka hawl badan buu qabtay af Soomaaliga uu bartay si wanaagsan buu u badiyay waxa kaloo hambalyeynaya dhalinyarada halkan laga yeeliyay oo qaarkood aan caruur ba ahayn caquulo kale iyo kuwii halkan ku guuleystay saaxiibkii Cabdilaahi uu akhriyayna waan hambalyeynaya waxaan hambalyeynayaa oo kale saxaafaddu maanta waxay noqotay dhalinyaro fara badan oo in badan oo halkan imika fadhidaba aan carabka ku wada gaarsiin karaynin inay u qalmaan iyagana in halkan laga xuso inay yihiin kuwo abaalmarin toosa la siiyo way u qalmaan laakiin waxaa maanta lagu kala guulaystay waxaan mar labaad ku hambalyeynayaa guddidii halkan kala saaraysay inay ka dhigtay sida ay u gudbiyeen waxa maanta dadkeenu ugu xanuun badan yahay oo ah abaarta ciwaano ka weyn oo la dooran lahaa ma jiro sida aa uga shaqaysaan ayaa ajarna idin leh ifkana magac idin yeelan doonto suxufiyiinta waaweyn oo maanta laba da-oodisa soo gaareen labadaa da-ood waxaan odhan lahaa mid walba wax wanaagsan oo aad kaga dayataan buu leeyahay weji buu leeyahay weji buu fadhiyaa faysal farfarle ducaale wayar muuse jaamir xaddi axmed ducaale iyo xataa yoonis waa kaga dayan kartaa wax walba waa kaga dayan kartaa oo ah waxa wanaagsan inta wanaagsan kaga dayan inta wanaagsan ee ah sida ay mihnada saxaafadda ugu shaqeeyeen sida kale ay u nool yihiin waxaad ka qaadataan sida culimada una uga qaadataan markay wacdiga akhriyayaanna diinta uga akhrisataan markay guryahooda joogaanna ay dadkooda yihiin ee ay dhaqankooda isaga raacayo qofka dhaqankiisu isagu raacayaa iyaguna culimadii saxaafadday noqonayaan marka waxaan idin odhan lahaa annaguna aanu meesha caquuliya u yaro banayno in badan baanu hor fadhinay markaa ha noqdaan intii aan nagala hari lahaydeen baanu doonaynaa aanu la nimaado ninka lagu idhaahdo guddoomiyaha soolja waxaan u sheegayaa waa runtiisa xilligii aanu joognay waxaa suurto gashay isaga iyo madaxda kale ee la shaqaynaysa ee kayse iyo mawliid iyo kurdi iyo raggii guddidaasi ahaa waxay u shaqeeyeen maxaynanta wadigeeda dhammaantood si wacan bay u shaqeeyeen wasaaraddeena iminka iyo markaaba si fiican bay igu wada shaqeynay waxaan leeyahay xitaa yooni saaxiibkii waa la kabtamayey markii uu yimi waxbuu la qabtay wax fiican buu la qabtay inkastoo sidii aan u kala booday ay usoo kala boodeen markii dambe haddana laakiin waxbuu keenay marka waxaan leeyahay nimanka xuute madaxweyne waxa ay weligood codsan jireen in xarun waa machad saxaafadda wax lagu bara la sameeyo saaxiibkii maayarka imika waxoogaa wuu ku ciiray laakiin waxaan ugu soo jeedinay oo xuutu ka gows adeegay xarunta wasaaradda warfaafinta dayrkeeda weyn inay meelka istaamayso sameyn way ila diideen waxay isiraahdeen wuxuu noqon doonaa machad ay xukuumaddu gacanta ku hayso machadkaasi haddii xukuumaddu ay gacanta ku hayso iyo haddii uu dayrka xukuumadda ka baxsan yahayba isku wax baa lagu baranayaa saxaafadun baa lagu baranayaa haddii laga tegi waayo wuxuun baa ku soo yaro biiri lahayd nabadgelyada ilaaliya